Assalaamu calaykum kulanti waxaana wanaagsan daawadayaal muuqaalkan waxaynu kaga hadlaynaa xiisada ka dhaxaysa labada dal Soomaaliya iyo Kenya. Dagaalka beled xaawo ma dhaba in ciidamada Kenya ay ka gudbeen xuduudda sida wararku sheegayaan waxaa istaagay dagaalkii xalay ilaa saa ka socday magaalada beled xaawo oo ku taala xuduudda Kenya iyo Soomaaliya. Ugu yaraan 11 qof oo 5 carruur ah oo isla dhalatay ay ka mid yihiin ayaa la xaqiijiyay in dagaalkaas ay ku dhinteen. Labada dhinac ee ku dagaalamaya magaalada ayaa guulo kala sheegtay wuxuuna midka kale ku eedeynayaa weerarka iyo dagaalka inuu isagu bilaabay. Wasiirka warfaafinta dowladda federaalka ee Soomaaliya Cismaan Abuubakar oo shir jaraa'id ku qabtay magaalada Muqdisho ayaa dagaalkaas ku eedeeyay dowladda Kenya iyo ciidamo ku tilmaamay jabhad. Dowladda Kenya weli kamaysan hadlin arrintan balse hore ayay iskaga fogeysay eedaha ay dowladda federaalka ee Soomaaliya u soo jeedisay. Soomaaliya Kenya waxay ka mid tahay dalalka ciidamada ugu yabooha hawlgalka nabadda ilaalinta Soomaaliya ee AMISOM waxayna askarteeda si gaar ah uga howlgalayeen Jubbaland. Dhanka maamulka Jubbaland, madaxweyne ku-xigeenka koowaad Maxamuud Sayid Aadan oo BBC-da wareysi siiyay ayaa waxa uu sheegay ciidamada weerar lagu soo qaaday kadibna ay iska caabin kadib waxaa la isla galay magaalada halkaas ayayna wax ka socdaan ayuu yiri Maxamuud Sayid Aadan. Saraakiisha hadda soo wacday waxay sheegeen sida Generaal Cabbaas oo kale inuu joogo isteeshinka iyo xarunta degmada, laakiin hadda magaaladu waa magaalo weyn oo daafaheedu ay weli xabadu ka dhicin ayuu hadalkaasi ku sii daray.